السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب الأمان وأنا سلامية سلام كبعدي مانتي وحان كهلينا سؤاشي لو السوري أهيد Tell me about yourself. سؤاشني ما أهان سؤال عادي وسؤال خيانة وقفك لو أغانيو قفك ويهي in terms of communication skills qofka miyuu si wanaagsan wax u qeexi karaa ma qof social ahoo hadli kara ma yahay oo dadka wax u micnayn kara markuu sheekeynaya waa noocee waa su'aal adi shakhsiyadaada ka hadlaysa marka su'aashan ma ahan su'aal inaad muhiimada ku saartid wixii CV-gaaga ku qornaa inaad mar labaad aqrisid ma aha intaan ku dhashay iyo iskuul heblaan ka soo baxay iyo jaamacad heblaan dhigtay iyo intaas sanad dhiganayay iyo waxaas ma aha badanaana dadka interviewga imaada oo su'aalaha la weydiiyo su'aashaas la weydiiyo badankooda su'aash dhinacaas la aadaan marka dadka waxaan rabaa inay ogaadaan su'aasha waxa weeyaan in lagu ogaado communication-kaaga your art of communication baa la rabaa in la ogaado levelkay tahay isee wax u qeexi kartid markaa CV-gaaga gudbisay cover letterkaaga laga hayo xogtaada waa la hayaa laakiin hagina mar labaad lagu soo celinaya su'aasha lagu weydiinaya marka taas micno badan ay sameynaysaa waana trick marka waana laf dhabarka su'aasha interviewga dhammaan haddaa su'aashaas jawaabteeda meesha ugu habboon aad dhigtid 99% inta kale muhiim ma ahan waad ku guulaysanaysaa haddii su'aashaas maxaa la yidhahdaa sida ugu habboon uga jawaabi weysid probability-ga aad helaysid shaqada way hooseysaa marka maanta waxaan rabaa in asxaabta shaqadoonka ee dhalinyarta hadda wax baranaysa oo shaqo raadsan doonta iyo ragga cilmi ahaan oo u kororsanayaba in aan si waafaqsan oo qeexan aan u faahfaahiyo aan su'aasha ah naftaada ka hadlo su'aashani dhowr level ayay kala leedahay dhowrka level ay kala leedahay waxaa la rabaa inay ahaataa waa inaad u dhigtaa hab very short and precise ah ha dheeraynin su'aasha jawaabteeda waana inaad ahaataa informal formal ha ahaanin because waa conversation adi iyo dadka interview ka qaadaya ma ahan because already maadaama documentigaaga aad gudbisay formal ba ahayd marka this time waa inaad u dhaqantaa hab informal ah oo friendly ah oo aad qeexaysid qofka adiga aad tahay sida ugu habboon aad u dhigaysa hadalkaaga waa inay qaadataa daqiiqad ilaa 2 daqiiqad iyo bar so 3 daqiiqo oo badnaan laakiin 3 daqiiqo ilaafto qofku ku caajisaya sheekada dheeraanaysa marka waa inaad u dhigtaa hab yaroo gaaban micno badanna sameynaysa ay dadka marka qeexaysid isla marka ila dhacayaan jawaabteeda marka aan gudagalno wax la iskaga baahan yahay marka ugu horeysa waa inaad ka hadashaa horta adiga strength-gaaga awoodahaaga waa inaad ka hadashaa ilaahay uu ku siiyey iyo waxaad ku wanaagsan tahay labo waa inaad ka hadashaa your professional background-kaaga waa inaad qayb ka mid ah ka hadashaa saddex waa inaad ka hadashaa achievement-gaaga maybe tan afraad waxay noqon kartaa inaad ka hadashid shirkadda aad rabtid inaad la shaqaysid waxyaalaha ka taqaanid tan ugu dambeysa waxay noqon kartaa adiga inaad ka hadashid maxaa la yidhaahdaa hobbigaaga intaasay su'aasha isku soo koobmaysaa jawaabteeda marka tusaale aan siinaya haddii aniga aan ahaan lahaa qofka interviewga loogu yeeray ee su'aashaas la weydiinayo bal sidaan ugu jawaabi lahaa aan u dhigayaa qof kasta wuxuu yeelan karaa hab gooni ah oo u wanaagsan oo aniga fiican laakiinse bal ani ahaan levelkayga sida ugu habboon aan u dhigi karo baan u dhigayaa saan bal feedbackna aan oo helno dadka daawanaya oo ay dhahaan okay saasa fiican qofkii fikir fiican ka lahayn inuu la soo wadaago haddii tayda ay fiicnaatana inaad ka faa'iidaystaan
okay marka sidaa u dhigi lahaa waa sida tan waxaan ahay qof dadaal badan wax akhriya jecel inuu la shaqeeyo dad kala duwan dabeecadahaas qaaska ah oo aan leeyahayna aan jeclahay inaan mar kasta aan u isticmaalo shaqada aan hayo aniga waxaan la shaqaynayay company la yiraahdo XYZ 5 sano ugu dambeysay waxaan ka shaqaynayay qaybta in la caawiyo macaamiisha waxaana xiriir wanaagsan aan la lahaa macaamiisha intaa kadib shirkadayda marar badan ay dalacsiisay shahaado sharafna waa la guddoonsiiyey waqti xadarkani waxaan ka shaqeeyaa qaybta project managerka waxaana ka shaqeynaa aniga teamkaygaba inaan develop gareyno software loo isticmaali karo adeega gacanta lacagta lagu kala dirsado waxaan intaan hawshaas ku jirnay aan la shaqeynay shirkado kala duwan haddana waxaan nahay shirkadda ugu wanaagsan uguna tayada fiican waddankan xogta waxaan ka helay positionkiina shaqada banaan wiil saaxiibkay ayaa ii sheegay markaan eeganayo waan ka helay positionkaas banaan waana soo apply gareeyey waxaan ogahay shirkadiina inay tahay mise hay-addiina inay tahay hay-adaha ugu fiican ee ka jira waddankeena kana qayb qaata horumarinta bulshada waxaana jeclahay in cilmiga iyo aqoonta aan leeyahay aan ku kordhiyo shirkadiina aniga waxaan jeclahay badanaa inaan banoonta cayaaro waqtiyadeeda firaaqada ah waxaa kaloo jeclahay inaan dabaasho waxaana jeclahay inaan wax akhriyo waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqon doono guusha shirkadiina waa mahadsantihiin marka habkaas oo kale baa u dhigi kartaa jawaabta hadda maalin ka hadlay meeshaan ku dhashay iyo jaamacadahan ka soo baxay because already way haystaan waa fahamtay soo maaha marka waxaa u dhigaysaa waad hab kale waad u dhigi kartaa oo wanaagsan waana ii sheegi kartaa hoos kusoo qora habka ugu wanaagsan kaloo loo dhigi karo waan ka wada faa'iidaysanaynaa marka isku day inaad markaa hadlaysid qof kasta aad eegaysid gacmahaaga expressionka waad isticmaali kartaa oo marka waxyaalaha qaar sheegaysid gacmahaaga waad muujin kartaa waad dhaqaajin kartaa si verbal expression fiican aad u samaysid waxaana ogaataa haddii su-aashaas aad ka jawaabtid sida ugu habboon inaad shaqadaas ku guulaysanaysid waxaana horey idinkuu sheegay in dadkaas aad la sheekaysanaysid waa dad bini aadan adiga oo kale ah muhiim ma aha inaad ka cabsatid muhiimadaada waa inay ahaataa in su-aashii lagu weydiiyey sida ugu wanaagsan aada uga jawaabtid taas ayaa muhiim ah taas ayaa ku horseedaysa guusha haddii intaad su-aalaha ka jawaabaysa su-aasha awooda wax aad ilowday laakiin adoo interview ku dhex jiro wixii aad soo xasuusatay waa inaad dhahdaa okay intaasaan kusii darayaa hal sir baan idiin sheegayaa marka haddii lagu dhaho maxaa cabbaysaa biyo mise shaax wax dalbo waxaa ku ag yaala taas waxay kaa caawinaysaa mararka qaar markaan rabtid inaad wax soo xasuusatid inaad biyaha qaadatid aad kabatid adoo kabanaya ku dul fikirtid saa wixii aad ilowda u soo xasuustid marka fursad weeyaan inaad at least wax dalba lagu dhaho su-aashadii loo weydiiyey inaad dhahdo okay waxaasaan dalbanaya waa ku muhiim ha ilaawin taas waxaa kaloo mararka qaar las weydiiyaa what's your weakness waxaa kaloo las weydiiyaa adiga su-aal kale mana weydiin lahayd maxaa su-aalo adina weydiin lahayd
marka su'aalahaas ijaabahooda qaybta xigta ayaan iyadoo faahfaahsan aan uga hadli doonaa. waxaana idin rajeynayaa guul dadka shaqadoonka ah. subscribe dhaha youtube-kayga, hana la sheegareeyo dhalinyarta soo kacaysa iyo dhalinyarta wax baranaysa iyo kuwa shaqadoonka ahna aan u faa'iideyno. hana la sheegareeyo videogan. aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. peace.